بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. توحكست ولا قاعو ولا عادي يشو ولا نقي يشو وإسلامك wixii aan islaamka ahayn diin annaga noomaan haddaanahay dadka muslimiinta waxa weeye sanadkana sidiisaba waxa uu iska leeyahay taariikh ayuu iska leeyahay. dadka muslimiinta uu dawladda islaamka markii ay dhisantay waxa weeye ijtimaac weyn ayaa dhacay oo muslimiinta ay samaysatay dhacda taariikheeda oo ay samaysteen taariikhul hijriya hijriya waqtigaas ayaa lagu magacaabay intii dawladda khulafaa ur-raashid ay jirtay waxaana lagu dhisay bisha muslimka marka ay tahay kow oo sanadka koowaado islaamka oo bisha muxaram ay kow ay tahay soomaaliduna sekaday u yaqaaniin oo hadda waxa weeye aynu ku jirno bisha labaad. markaas ayaa sanadka la asteeyey oo markaasi muslimiinta ay iska leeyihiin. markaas kahor waxaa jiri jirtay taariikh la yidhaahdo taariikhul miilaadiya la yidhaahdo oo midda hadda markaasi hadda la sheegaayo ah dhalashadii nabiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo ayaana laga tiri jiray, laakiin dadka muslimiinta ahu ma aysan lahaynin maxaa yeele waktigaasba muslimiintu ma jirin. diinta islaamka markii ay timiday wixii la jideeyana waa taariikhda islaamka oo hadda jirto 1434 ah ayaa maaragtay waxa weeye taariikhda islaamka ay tahay. sanadka marka la sheegaayana waxaa lagu dhisayaa hadday 30 ku dhamaayso 29 ay tahay kamilato 30 ay ku dhamaanayso samaawaadka ilaahay markuu abuuray waxa ku sugan dayaxa iyo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala waxaana lagu barayaa sanadaha cadadkooda iyo xisaabka ayaana lagu barayaa. marka waxa weeye sanadkan hadda la leeyahay miilaadiga la leeyahay ama masiixiga wax markaasi islaamka ama muslimiinta u shaqeeyaa maahan. gaaladuna shay hawadooda ay ku dhiseen weeye oo waxay xisaabka ay ka wadaan waa shay oo maaragtay shamsiya raahda socodkeeda hawaa'iya ku dhisayoo bishii ay soo dooneen ka dhigeenoo 31 marka dhigaya markaasi 30 ka dhigaya marka warba dhigaya. marka dadka muslimiintaahu sanad uma ahan sanadkaasu taasi ku xisaaban maayaan. dadka muslimiinta oo arrimahaas weynaynayana waa dad diintoodii halmaamay oo markaasi waxa weeye waxba aanan diintoodii ka aqoonin weye dadkaas. mabaadiyadu sideeda waxa weye wax cusub maahan oo waa wax horreeyey waaye oo taariikhdan miilaadiyada waa ay ka horeysa taariikhda islaamka. waxa cusub waa taariikhda islaamka marka cusub la yidhaahdo. marka taas waxaa keenaya dadkii muslimiinta ahayo ina daciifay diintoodii ka tegey gaaladii iska raacay gaaladii ay gumaysatay ayagu wixii ay rabeen ay ka dhaadhiciyeen oo amarkooda ku hoos jira mushaarka ayagu ay sii jireen. haddana markaasi waxa weeye weli ay markaasi ayagu ay hagayaan. marka ma ahan arrimahaas oo dhan waa dadkii muslimiinta lutfiga qalbiga ka galay ayagu ay ka leexdeen wadadii iyo quwadii islaamku uu lahay oo ay markaasi gaalada u iisheen. wax markaasi banaana maahan arrintaasu. dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa inay gartaan waxyaaba hadda waxba aanan dhibayno hadda waktiga isku mudaysto iska un waktiga zamaniya waxaana dhibaato mala. laakiin hadday arrintu keenayso in lasoo nasakhay amase maanta waxba ayada dadkaasi diinba gacan ku mahayaan ayaa hataa sideeda u jirtana waa mansuuq. maxaa yeele ambiyadaas waa weye waa ambiye xaqa, laakiin hadday soo gaari lahaayeen rasuulkeena calayhi salatu salaam nabigeena uu sheegay asaga ayay raaci lahaayeen oo markaasi nabiyullaahi muusa iyo nabi ciise
هدي يسوي جاري لأنه رسولك عليه الصلاة والسلام وحسو سجل لا يمجد إلا عنه إنه راعان ويان إلهي إن أنبياء لما أنت وكب اللميين رسولك عليه الصلاة والسلام مركي وصوب عينه راعان مركا أنك إن إسلامك إن الراعه وضدك دينك إسلامك أي راعان قالوا أي راعه أو أي إسلامان أي وحلة دون أياه marka arintan waa nasiib ayaan daro iyo nasiib daro ku dhacday dadka muslimiinta ay diintooda ku fuudaysteen oo ku yareysteen bisha muslimka waa lagu xisaabi karaa wax walba waa lagu xisaabi karaa ilaa ilaahay 12 bilood ayuu saaka ka sameeyay suuratu baraha ka ilaahay dhahay inna iddata shuhur inda allahi 12 shahran fi kitaabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda ilaahay oo ilaahay markii koonkan uu abuuray إلى الله يتوان بلوضو قدقي وصلت إليه لبدا سيطوان كاس بلوضو الله كرنا هنا وحالا حسابا يكو كيين إيش المحرم أو سكن الصومالي يقانين إيش هتأيال